siyaasadda guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Somaliland. Axmed Saciid Ciga ayaa inoo haya taariikh nololeedkiisa. الله ونحريسته محمد حاجي إبراهيم عقاب وكل ما يسوي برشة عمل القرآن إلى يدكسجا عن كأها وحبرشة سرية أيوة وحو أتجي الله حريدا دينا عجناسجا مجالات لندن ودن كإنجليز كا وحنود وقصوا الله هرانتي سنده كنت ميدي أو حلقاتي أي ألوسني دبيشي حرم الدونكا حسبي SNL سنة كن سجال بقول اللي كنتم كي الله ونحريسه محمد حاجي إبراهيم عقال وحلو دوتي إن ونقض حقيه جود حسبي SNL وهجمنا حرم دي Somaliland بشي سابر وري سنة كن قاعدة دولة إنجليز كتاريخ مركا أي تاي لحية لباتك سونية سنة كاللحدن كا مركا سواها عقال كوهليي هشيس كاسي رق أي كاميرا هايين علي قراتشا مع حاجي إبراهيم نور أحمد كيسد علاء إيام محمود عبد عرالي محمد إبراهيم عقال الله أنه حريسة وحا ونقضيه رامي وهري Somaliland كدي مركا أي حر مديدة قاعدة لحية لباتك سون سنة كن سقال بقولي لحدن كي كودي جولاي كن سقال بقولي لحدن كي مركي قبلة كونفرنس سوماليا أينا حرمدودي كقاتين دولة إيطاليانية أي دالتي جمهورية سوماليا محمد حاجي إبراهيم عقال أو هجامنا يوفدي كسعودي Somaliland وح ونقضي وزير كي قاشاندي جوجو ري سوماليا الله ونحريسه عقال وح وكلا ونقضي وزير كي تعليم سوماليا سنة كن سقال بقولي سدح لحدن كي لا يكون سقال بقولي أفري لحدن كي هسيا شواء وسكعت ليقوله وسيرة حلقاتي مكي وقارية كان نقضي حسب معارضة حول ورنجري SNC مركي دمنا وحو كبيري عقال حسب SYL طبعا كي جولاي كون سقال بقولية تدبية اللحدن كي وحا عقال ونقضي رئيس الوزراء الصوماليا مركي عبد الرشيد علي شرم أركي لو دوتي حلقاتي مدحوينه صوماليا محمد حاجي إبراهيم عقال مركي لها أي وحو لو دوتي قدحتي رئيس الوزراء صوماليا دورشون كون سقال بقولية سقال اللحدن كي قبل 20 أكتوبر كون سقال بقولية سقال اللحدن كي مركي خلافي ملتري وهجامنا أي جنرال محمد سياد بري وكدعي Soomaaliya taladi ciidamadu ay la wareegeen maxamed xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliyeed ee la doorto ee la inqilaabo dawladdiisa waqtigaas waa la xiray waxa uu maxamed xaaji Ibraahim Cigaal xabsiga uu ku jiray ilaa 1981 bishii February marka laga reebo muddo sanad ka yarayd oo ahayd 1975 ilaa 1970 oo mar loo magacaabay dadweynaha Soomaaliya oo fadhiya dalhi dalka Hindiya kadibna isla markiiba xabsiga ayaa lagu celiyay loo yeeray 1985 waxaa jirtay mar loo magacaabay maxamed xaaji Ibraahim Cigaal gudoomiyaha rugta ganacsiga laakiin kuma uraagin taasi ee uu iska cashay markiiba burburkii dawladda Soomaaliya ka jiray Cigaal waxa uu ka qayb galay sanadkii 1991 shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee Djibouti 1993 bishii May santeedii Cigaal waxa loogu dooray magaalada Boorama madaxweynaha Somaliland iyadoo tagadaasi haddana dib loogu doortay sanadkii 1997 shirweynihii beelaha ee Somaliland maxamed xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu toddobaadkii hore daaweyn u tagay dalka koonfurta Afrika iyada oo ay weheliso marwadiisa Kaltuum Xaaji Daahir iyo xubno ka tirsanaa golaha wasiir ee Somaliland maxamed xaaji Ibraahim Cigaal oo aabihii xaaji Ibraahim Cigaal uu dhalay kaligii waxa oo Allah u naxariistay uu guursaday intii uu noolaa 5 dumar ah wuxuuna u dhalay 5 caruur ah oo kala ahaa 3 wiil iyo 2 gabdhood oo intuba ay u dhashay Marwa Caasha Saciid Caabi bishii 1960 waxa magaalada London uu Cigaal ku saxiixay heshiis dhigayay in 1960 ay Somaliland xornimadeeda ka qaadato Ingiriiska markii loo ballan qaaday madax banaanida hadaladii uu Cigaal munaasabadaas ka jeediyay waxa kamid ahaa maalintii arbacadii galankii dambe shalayto ayuu noo yimid Colonial Secretary magaalada sana khudbadan oo kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye intiisa bisha kowriyada July idaacada BBC-da iyadoo afka BBC-da wareysatay isagoo sabab caafimaad u jooga dalka Koonfur Afrika
geerida marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxay dadka inta badani ku noqotay lama filaan iyo tiiraanyo dadku inta badani waxay markiiba muujiyeen walaac ay ka qabaan xaalada Somaliland oo tusaale u ahayd Soomaaliya inteeda kale marka la eego xagga ammaanka oo maxamed xaaji ibraahim cigaal maamulkiisa si weyn loogu amaano laakiin haddana waxay dadku inta badani cabsidii ay ka qabeen xasilooni darro ka dhaxda Somaliland ka qabowday markii ay habeenkii xal ahaa misana idaacada BBC-da ka maqleen in durbaba madaxweyne cusub daahir riyaale kaahin loo dhaariyay xilkii madaxweynenimo ee Somaliland ee uu ka tagay maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda ku meel gaarka oo ku saabsan geerida maxamed xaaji ibraahim cigaal hase yeeshee ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda ku meel gaarka Cismaan Jaamac Ali Kalluun iyo mas'uuliyiin kale oo laakiin intooda badan ka soo jeeda dhinaca gobolada waqooyi ayaa si shakhsi uga hadlay idaacadaha gudaha ee Muqdisho mas'uuliyiintu